howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ammaanka Puntland ee BSF ayaa ahaa mid lagu kurgalayo xaaladda amni xeebaha iyo bariga gobolada Bari iyo Gardafuul. ciidanka oo hogaaminaya saraakiil khibrad dheer u leh ayaa howlgal ka fuliyay deegaanada Murcaayo, Geysale iyo Xaabo. dhanka kale ciidanka ayaa deeqda waa gaarsiiyay qaar ka mid ah deegaanada ay booqdeen, waxayna kulamo la qaateen maamulka gobolka Gardafuul iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaas. saraakiisha ciidanka ammaanka Puntland ee BSF ayaa ugu warbixiyay bulshada ujeedka safarkooda, waxayna bulshada ku dhiirigeliyeen in laga qayb qaato soo afjaridda kooxaha nabadiidka ah ee ku dhuumaalaysanaya buuraleyda goboladaas. anagu safarka aanu hadda halka ku nimi waxaanu ahayn kormeer aanu ku sameynaynay qolyaha nabadiidka ah oo belada ah oo argagixisada ah. waxaanu ilaa 2 bari 3 bari waxaan ku soo jiray badda xagga badda ilaa iyo Yemen meel ka sokaysa waanu gaarnay. hadda safarkay wuxuu ku saleysnaa ilaa Xaabo, Murcaayo, Durbo qarkeeda inaanu dadka deegaankaana wareysano oo afqalalan baanu kala xishoonay. ciidan baan nahay waxaa dawaa baan Murcaayo iyo Xaabo ugu talagalnay deegaankana in aan wareysano oo sida xogta dhabta ah ayna siiyaan. wax badan ba badda ka shaqeeyaan. waxa ugu badan meelaha ugu badan oo Daacish iyo Al-Shabaab iyo kala degaan waa badda. xeebtaas waa xeeb dheer oo cidla ah, cid ka war haysaa ma jiro. waxaan aad iyo aad aan ugu kalsoonahay inaanu helayno akhbaaro. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gardafuul iyo qaar ka mid ah bulshada ayaa uga mahad celiyay deeqda dawada ah ay soo gaarsiiyeen, waxayna ku ammaaneen shaqada culus ee hayaan ciidanka ammaanka Puntland. waxa maanta booqasho noogu yimi ciidanka BSF ee Puntland aad iyo aad u mahadsan yihiin. waxay wadaan daawooyin bay wadaan kulay ugu soo talagaleen bulshada iyo dadka shacabka ugu soo talagaleen, ama waa markii labaad oo ay keenaan daawooyin iyo wax la mid ah. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waan soo dhaweynaynaa insha Allah waana ku gudoomaynaa waxa ay wadaan. marka waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladiina iyo dadkiina iyo shacabkiina iyo laakiin sukuuradku waa muhiim in laga wada shaqeeyo odayaal iyo qof kasta oo binaadana wuxuu ku noolyahay waa sukuuradka. tan ah daawadan anagu qolada caafimaadka aanu nahay aad baanu idinku mahadnaqaynaa wixii daawaad wadaan. markii koowaad inaysan noqon markii labaad noqon meesha aad hadba la socotaan. meeshanu waxa weeye health center weeye. ciidankaas BSF oo uu wato taliye Geysale ayaa kormeer ku joogay xeebahan gobolka Gardafuul iyaga oo xoog ka aruurinay dhulka xaaladda ay ku sugan tahay gobolku iyo wixii kale xog ay dheeraad hayaan. aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa shaqada wanaagsan oo ay gobolka ka hayaan. wixii xogana kulay maamul iyo odayaalba iyo taliyaha ciidankiisa waa ka wada hadalnay sida wanaagsan oo ay ugu heelan yihiin baan aad iyo aad ugu mahadinaynaa shaqada gobolka Gardafuul ay ka hayaan iyo kormeerada ay ku. Maxamuud Yuusuf Caamir, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.